kuwiirsaad lahaydoo noloshaba ha waaye anigaa wadkaygiiyo wakhtigaygu gelinoo weynuhu idaayey waxba iyo lamaad hadhin wax alla wax runtii warqaddaa ku qornaa la hadheen ma garanayo. haddaba maanta waxaa dowladda imaaraad ka soo baxday warqadda aan kor ku soo sheegay midabka kale lahayd oo aan meelna ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada waddan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. warqadda imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkirayaan, taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dorhaadi ahaa dowladdi ma jirto iyo warqadda dowladda imaaraadka ka timi ay isla socdaan. warqadda waxaa ka muuqda in imaaraadku uu ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac, waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada horarka ah ee fawdada ah ummadda Soomaaliyeed hore u soo daawatay, mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax ee dowlad la'aanta. warqaddani waxay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdoodaba u caddaysay tuhunkii ay qabeen ee ahaa saraakiisha arrimaha dowladda imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan, dibindaabiyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international lawga, waxaana wakhtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso, waxaana ka dhalan karaa sharci jebinta mas-uuliyad. waxaa kaloo warqaddan ka soo baxday dowladda imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba dib u xusuusisay maalmihii la saxeexay heshiiskii 17 Sebtembar ee 2020 ee qaar ka mid ah madaxdii heshiiska saxeexday isla maalmihiiba ay u safreen imaaraadka, kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata, mar walbana keenaya caqabado hor leh. dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha imaaraadku u qabaan dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahooda imaaraatiyiinta. dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeen ugu diidan yihiin nabadda, horumarka iyo wanaagga, annaguba intaa in leeg ayaanu la jecelnahay. shacabka Soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa in hadalka maanta imaaraadku soo saaray uu yahay mid qarannimada iyo jiritaanka dalka baabiinaya. waxaana muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan, waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, inay fahmaan waxa lala damacsan yahay oo ah dagaal sokeeye inuu dhaco si loo xalaalaysto dhulkooda iyo baddooda oo haddaba muran la geliyey. waxaa laga yaabaa in dadka qaar yidhaahdaan haddii walaaladeen inagu qaldameen innagu maan ka roonaanno oo maan ka aamusno oo ayaynaanu jawaabin. cajiib, haddii maanta aan ka aamusno dal dhan oo walaal ah oo shaqiiq ah oo leh statementkoodii baan rabaa saddexda erey ku jira inaad ii sheego, dagaal iyo qalalaasi ayaa hadda ka socda, there is ongoing violence in Muqdisho, hadduu socdaabay dee ku leeyihin dagaal baa socda. xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa, territoriyatin bay noqotay, way ka sii daraysaa. Soomaaliya dowladda kama jirto, way dhammaatay, inteeran baa loo guuray. wixii aynu ka soo baxnay 2012 ayay rabaan inay nagu celiyaan dowlad la'aanta ah. hadallada warqadda ku qorani waxay xusuusiyeen markaan arkay xalay hadallada ku jiray heestii abgaan cabdiqayse ahaa kuwiirsaad lahaydoo noloshaba ha waaye anigaa wadkaygiiyo wakhtigaygu gelinoo weynuhu idaayey waxba iyo lamaad hadhin wax alla wax runtii warqaddaa ku qornaa la hadheen ma garanayo. anigaa wadkaygiiyo wakhtigaygu gelinoo weynuhu idaayey waxba iyo lamaad hadhin. dagaal iyo qalalaase ayaa ka socda xamar bay yidhahdeen, xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa bay yidhahdeen, Soomaaliya dowladdi kama jirto ayay yidhahdeen. haddii aan waxaas ka aamusno sow jawaabtu noqon mayso xigmaddii carbeed ee odhan jirtay assukuut calaamatu rida. aamusku waa waxa lagu garto inaad raalli ka tahay waxaad ka aamustay. nidaar qabaanigii reer Siiriyana waa sii fogeeyey aamusko, sukuutka wuxuu yidhi waxa weeye waa ihtiyaaj iyo wajc iyo alam, wuxuu ku aamus, haddaad ka aamusto gartaada waxay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay qabkaagii iyo qiimahaagii. taasna haddii aanu Soomaali nahay inaanu qabkayaga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma lihin,
hiddana uma lihin sinaan ayaanu dhaqan u leenahay inaanu bini aadamka la simannahay soomaaliya waa dal xora oo madax bannaan sida uu dhigayo axdiga qaramada midoobay United Nations Charter madax bannaanida dalna lagumaba xadgudbi karo madax bannaanidu kuma xidhna dhaqaale bed iyo ballac iyo juqraafi toona dalka ugu yar ee 100 kuna iyo ka ugu badan ee 1.5 billion kaahi according to the international law waa isku xuquuq dadku way sameeyeen inna caarma dheera sovereigns are equal and have equal sovereignty all states are equal and have equal sovereignty dawladda Soomaaliyeed waxa ka go'an inay difaacdo madax bannaanideedaas qarameed waana ka tanaasulay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray waxaanu cadeynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya mala jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xabaal taala ma jiro sababta darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fikiraysa faragelin inay dib uga joogsato ciddii aan wanaag iyo horumar nagala shaqaynaynin fadlan dib inagu filan faraq iyo gacmaha ayaan ku haysanaa oo cadow baanu dagaal kula jirnaa ee dib kale anoogu dareen haddii aanad horumarkayga iyo iftiinka dawladnimo ee noo soo baxaya ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno qofka aanay farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeena maanta waxa farax gelinaya oo garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno ugu gabagabadii walaalaheena imaaraadku iyo warqadoodii xalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo u malaynaya inaanan arkayn habdhaqankooda waxay xusuusinayaan xigmaddii Mawlaana Jalaaluddin Rumi ee ahayd look at my eyes they are small but they say enormous things indhahaygu way yaryar yihiin laakiin wax badan bay u jeedaan laga yaabaa inay isleeyihiin Soomaaliya waa dal soo koraya oo soo dhismaya soo kamaya laakiin wax badan ayaa inoo muuqda oo inuu jeednaa ugu dambayn iyadoo waxaas oo dhan lagu sameeyay annaga oo ah dal iyo dad ka soo kabanaya burbur iyo dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dawladda walaalaha ee imaaraadka ka rajaynayaa inay noo fasirto hadalka gafka ku ah qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato marhabno kelmadeeda ugu dambaysa u fiirsada marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxal siisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacab marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxal siisa inay noqdaan qaar aan isu waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan maantay u sheego inaan marqaati ka ahay macawanadii ugu horeysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen dawladdii ugu horeysay oo ah dawladda isku tagga imaaraadka carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo waana soo gaartay gurmadkiinii waana ku mahadsantihiin waana gurmadkii ugu horeeyay oo dal walaalo ah uu nala soo gaaro sidoo kale waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso in shacabka Soomaaliyeed ay mar kasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhaweynayaan walaalahood shacabka iyo dawladda imaaraadka carabta waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa halkaan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgii soo kala dhex galay labada dal Soomaaliya iyo dawladda imaaraadka carabta ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkaan ka dhacday airportka waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay waana ka raali gelinaynaa walaalaheen laba dalo walaala ayaan nahay wixii dhacay waxaan leeyahay
horay aan uga soconno waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dawladda aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin waana soo dhowaynaynaa wixii dhacayna waa idinka raalligelinaynaa bog cusub aan bilowno sidoo kale dawladda imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltanimo saaxiibtannimo ah oo uu ugu horreeyey uu culayskeeda uu bilaabay sheekh saayid bin suldaan al nahiyaan allah naxariistii janno siiyo oo ahaa aabbihii furay ee imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa soomaaliya marka waxaan leeyahay soo dhowaada mar kale sidoo kale waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waad og tihiin dawladda imaaraadka carabta ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed way soo dhoweeyeen dalkoodii ayay ku soo dhoweeyeen ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya waxaana leeyahay xiriirka meesha ha laga sii wado gacan qabsiga meesha ha laga sii wado mucaawinada meesha ha laga sii wado waxaana rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo safiirka maxamed al cusmaan oo xaqiiqdii arrintan hormuud u ahaa dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dawladaha aan saaxiibbada aan nahay inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah dalkana uu ku jiro xilli jiilaal ah dawladda imaaraadka way noo bilowday sida walaalaheen imaaraadka carabtay noogu soo gurmada waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adagu ku jiraa xilli abaaru ku jiraa doorashadiina waa lagu jiraa waxaan leenahay doorashahaa violent iyo dhib iyo carqalad iyo dagaalna ma doonayno shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay doorasho ha loo diyaar garoobo kuwa waxa xun ku fikiraayana waxaan leeyahay ka waantooba doorasho ha la aado violentina ma rabna nabad ayaan rabnaa